أولا ما كو أمباريي maamulka Somaliland gobolada waqooyi madil araw gobolada waqooyi wali ka noolaha umad badan khaasatan reer waqooyi ma ambaareewan ma weelay wali rooga dalkaasiyo dad uqala ah ugaasa ah salaadiin ah culamaa wadiin ah dhalinyaro ah haween ah ganacsato leh ya roogan ummataas dhibaato in jeesadaan marna raala in ku hayna in ummataas la dhibaatay ambaarantan ambaareeyay maamulka Somaliland oo ka dhisan beehi gudoomiye oo madaxweynaha maalmahan arday dhow shalay daraad maalintii ka horeeytay wali ku socday laas aanod baraka dhibaatooyin dad la barakaciyo hay oo dad guryaalka leh dad boosaska leh dad baqaaro weynka leh dad ganacsato arday weynka ah dad ganacsato yar yar ka ah wali arday banaanka ganacsadaan iyo wali gudaha ka ganacsadaan wali hoogsato ah oo murjo arday ka shaqaysadaan oo la kuweeladi bartilmaameed oo la leeyahay koofra ka kooyan arantiyeeda haytay ambaarayaan eedan ambaarayaan maamulkana ambaarayaan eedan ku hunwaan anoo ka hadlayo xildhibaanada federaalka Soomaaliya oo ku jeedo koonfur galbeed wali khaasatan antaas ku dibay si dheera bani aadamka waliska qiimaday xoolaha oo xoolo leh ya nabigeena alayhi salaatu wasalaam wali aray markii ada goor riyaas aan raahay hungurisi BC dadkii la raafi oo la aruuriyay sida Saudi amal oo guriyaajo leenka galay la aruuriyay ya wali niska jeeyay meel garoon ah garoonkaas oo la ka magacaabo Abdi bil Abdi oo laas aanood ku yaal wali la shay waana kala socday dadkii meel la ka aruuri dad oranto 700 ama 750 deerow in 24 saac af iyo biin ka dar adduunyada beel hor ka dheeday mala oo gaaji haraad meel ka leedahay ku dib baabuur dabada leeyka sheeniyo oo nafta ku daba yarta baabuur la ka aruuri galka ilaa ku deedi wali la sheegay war la socday in bilaamay xanuun hay oo fooladaas la ka qaadi gurshay la ka qaadi yaa waliba ooyas madi garoonka la sheeni meel ka dhalay lama oog mitaana dhalay yalla socod oo hatta ida adab la ka sheegay dadkii meel roogay goob joog hay meel ka sheegay arantiyaha haytii wal isweelo koran oo lan Soomaaliyeed ka abta soo jirshay Soomaaliyeed ka taal weelo koran ma antaas kala may si dheera lan taliyas ka sheegay taliy booliis ah leh taliy isku sheegay wali taliy hayn oo naftiis in Soomaaliyeed in dhalan aan aaminsan ya wali aray dadka koonfurta ku jeeday Itoobiyaanka isku mid ah fakadalika lan Soomaaliha ku jeeda oo hatana taliy booliis darjaas ka deeri inuu saar dadkii Soomaalida haayaan oo deegansho roogay oo meeliyo 20 sano 30 sano ka ganacsadaan oo leh anshuur ka aruuriyay walba dadkaas barday Soobiyaan inuu saati geek saar Itoobiyaana ardayni limidayn aran foolhum wana loo ogolaado kor oo nasiibhu ma oo arantiyaada hayti ambaarayaan taariikhdan qoradoon antaas kale may si dheera inii si raadiyo hayaan inii weydiyo hayaan wali la soconay inii laas aanod markasta dadka wala gorod yo oo aqoon yahaniintiyo ama saraakiiliyo inii la dilo hay dadka dilo hayeen in maamulka meel roog markaas ku dib reer laas aanod la aroohay la ka qanaciyo hay wala sin dilo hayo dadka koonfurka ku ayuu leeyay arintaasna been sal raad la toonan hayn
lan ganacsado wal midilo lan dukaan lee wal midilo dadka wala dhamaayo hay dadka maamulka oo dadka laascaano dadka leeyo hayna dadka maamulka oo ornaf la arida markaas ku dibaan wali arday ka karin tiradayna leeyin dadka ka ganaciyayna reer laascaano ka ganaciyaan fadayna dadka sindid diloohay dadka oo ganacsatada wardan guriga koonfurka kooy wali arantiyada hayta aran la weelowna ma lan dembe galow lan kastohaad ama koonfurka kooy mis waqooyi degnaaday lan dembe galow dembiilu ilaahi subhanahu wa ta'ala walillahi wala taziru waziratun wizra ukhra lan li dembi shay lan kala arday mahan barakor lanki dembila wal qobada laakiin inni bilaamay min jaka jath iyo awlaadiye la harafa lan ganaasatay la harafa lan gurile la harafa lan deegaankaas bidegan wali la socona sanadkan doorashadii golaha deegaanka markii meelka dhiyaasi dadkii odayo dadka tagay la harafahay dadka la aruuri dadkii waqtigaas arday odayan ahaan oo karar iyo haysadaano muwaadiniinimo iyo inta uu deegan ahaan odayan ahaan arantiyada hayti aran Soomaalinimada ka baxsamo aran la ogolaado corona ma Soomaali meel kasta roogda qofarta wali kon noola oo waliba ka sii badana oo rooge dad waqooyiha ku jeed laakiin min dhalan iniyo raafan maana fadaayan iniyo raafan dad jarro iniyo raafan yoom fadoohayan arantiyada hayti aran bani aadamada korjeedu aran oslaanimada korjeedu aran diinta korjeedu aran la ogolaado korma aran la weelo korona marka maamulka oo waqooyi ka dhisan waranka baaqana iniyo aran horta ma jaro doonaan adduunyada lan kasto wal kharba maroogo doona maana naado kor mid waara manaado kor laakiin kariintiro insha Allah ta'ala yoor maroogo doonaan waqooyina ma ka rajaane maamul la jaan qaado dadka islaamka in hadho waayo oo mutan u gumaadaan in ilaahay inshaano taasna ku doayaan mid kale ma in mahad naqaane si goonaan ka mahad naqay maamulka Puntland oo hadho waay dadkii la raafi oo gaalkaay madii shalay laha ka deedii 750 qofood meel laha ka deedii in gurmudeen oo hadho waayaan yaan ka mahad naqaaniyoon may weelay islaamnimada ka jarta lan koob la qaraab oo dhibaatadiis la arday hoolashi oo la qarbudo in la hadhowaay sharaada dhikaas taasna maamulkaas eedan ka kama naqaan horeyn han dhawaayan madda kale wali la banaysado hay hantidii sodosira la shaqeeyay oo bakhaara ka aruursan oo deyn leh oo deeq la meelo ka jarti in dadkii la qaado hay nafaajo la qaado hay wali kale arday hantidii meel la ku tabahay may kale la soconay dadkii la qaado hay inni hal mobile la ku tabahay mobile la ka aruuriyo wali jeenta la ku argay lan la aruuriyo mobile jeelu ku qaado ilaa wali lin haysde mobile la ka shaqeeyay wali akoon ku furun wali EFCD la shaqeeyo inni arday mobile la ku aruursado artaasiyo ana bani aadamnimada eedan ka baaso aan baarayaan maan ogolaadan markale ku hado doon adduunyadu in sheegan tan kala lamaad codsigay oo aan codsado may kamid ah odayaalka wala gorodka dhalinyarada haweenka culmaawadiinka oo waqooyi ku nool in arintaas an kahan si degdeg aan wala ku qabadan ummataasna hoolasha in badbaadiyaan barakacagaas ummataada ku soo bihaan ka dhiidiyaan yoona ka kahan malka qanaco isina tiimka qanacaasan laas aano dhibaatada maamulka in jeeshadu 24 saac wal gorod iyo dhamaayo haayona arintaas ma ka qanacayaan ma ka qanac doonaan in dadka masaakiin ay shaqeysado hay ganacsatada la aruuriina ma ka qanacayaan yoona wal mid dilaan dadka wala dilohay wal ogiye maamulka beehiyo insha Allah ta'ala arintiyada hayteen wala sidabseeda ilaahayna walba ma ka qarsoon wal kasto soo biyoon ilaahay wal isku qarsoon ma jiraan insha Allah ta'ala arintiyada hayteen wala isku daba kooya maalin ku hadal doon maalin walbi ku hadal doon dabagala ku soo bi doon insha Allah ta'ala arintaasna arday wal isku daba kooy doon wal gorodkana may ka codsadaan arintiyada hayteen eed arday ku codsadaan eniyo surman waana kahan dabagalna ku soo biyaan masaakintii la aruuriyay ganacsatada la aruuriyay muwaadiniinta la aruuriyay
deegaanjo iyo howlayo hantidii inayo badbaadiyaan iyo guryaha iyo badbaadiyaan taasana ku codsadaan wabillahi tawfiiq iyadana ma hasantin insha Allah ta'ala